sabab la xiriirta caabuqa corona labada masjid xaram ee Makka iyo Madiina ayaa haawanaya oo aan salaada jimcaha maanta lagu tukan iyadoo hareeraha Kacbada cidina aysan joogin. Jimcihii la soo dhaafay boqortooyada Sacuudiga oo laga dareemayay cabsida corona ayaa Masjidul Haram ee Makka ku yaala imaamkii la ooyay xaaladda taagan iyo sida hareeraha Kacbada ee aad loo buuxdaafin jiray markan u noqotay cidlo. aayadaha Qur'aan ee ka hadlaya kaalmo weydiisashada Eebbe ayuu si gaar ah wadaadku ula ilmeeyay. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك si la mid ah sidaasi masjidyo kale oo wadamo badan ku yaala ayaan lagu tukan salaadii jimcaha ee maanta. wadamo badanna waxaaba masaajidda aadaanka dadka loogu sheegayaa in ay guryaha salaada ku ogaan. ألا صلوا في بيوتكم waxaa la diidan yahay in dad badan goob ku kulmaan isuna gaarsiiyaan caabuqa corona kaas oo in ka badan 200,000 oo qof soo ritay si guud caalamka halka dad 10,000 oo qof ku dhowna ay u dhinteen. wadamada ay masaajidda waaweyn maanta irdaha u xirnaayeen marka Sacuudiga laga soo tago waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta, Kuwait, Bahrain, Malaysia, India. dhanka Afrikana wadamo ay Kenya ka mid tahay. halka Soomaaliya masaajidda maanta laga ogay salaada jimcaha qaarkood khudbada lagu soo qaatay caabuqan dunida kala xiray ee coronavirus ayaa noqday masiibo ay aadanuhu wajahayaan. haddana dad badan waxay qabaan in cabsida laga badbadiyay oo khatartiisa iyo sida